عادي يدين كرتا وايا qofka markuu weynaado waayeel uu noqdo oo uusan awlaad dhalin magac baa loo yaqaan magacaas muxuu yahay magacaadi waa waajid ama duq waayeel ama waalid kula wacan daawadayaal Ramadaan Kariim ku soo dhawaada barnaamijkiisa Weys iyo su'aalaha oo ah barnaamij toddobaadle ah caawa waxaan dhex joognaa suuqa magaalada Garowe ee dhowr su'aalood ayaan weydiin doonaa bulshada dhinaca kaamirada waa Cabdiweli Gallayr bal dadka iyo su'aalaha qaabkii uga jawaabaan la daawada adoonka sodonkeeda beri intuu ballan qaaday Sooma ilaah boqorka abaan mari ku dhawaad walaal gacali magacaaga Cabdullaahi waa la dhaawaa Cabdullaahi oo ina su'aal ku dina soo aragtaa waa ku faraxsanaa walaal qofku markuu weynaado oo waayeel noqdo oo uusan awlaad dhalin magac buu leeyahay magacaas maxaa la dhahaa waxaa la dhahaa qofku waayeel markuu noqdo uusan ciyaar dhalin soo maaha Hey, y'all, come look at this. wallaahi waxaan u maleynayaa barqa baan dhihi karaa wax kala dhihin ya may de ninkaas nid doob iska dhaado aan waxba dhalin iska barqa booyo maxaa daar wasabi Ismaaciil maxamedow inaan su'aal ku weydiino soo aragtaa ma sha Allah soo dhaweynaa baa waayahay qofka bini aadamka markuu weynaado oo isagoo waayeel haddana aan caruur dhalin magac baa loo yaqaan magacaas muxuu yahay aan caruur dhalin soo aan caruurna dhalin soo waxa loo yaqaanaa cajuus ama kabiir أحمد شامي إبراهيم axmedow inaan su'aal ku weydiino soo aragtaa aad iyo aad aan ku faraxsanahay waayahay qofku markuu weynaado oo waayeel noqdo oo uusan awlaad lahayn magac buu leeyahay magacaas maxay tahay qof markuu waa usan waayelihiisa waxba dhalin qofkaas waxaa la yidhahdaa madhaliis ama magac kalena waa aqaanay laakiin wallaahi hadda ma fikiri karaa qofkaas wallaahi madhaliis ma dhihi karaa ku dhawaad walaal gacaliso maxaa Axmed Salaam baa dhaa maxaa waqooyi ku magac dheer waqooyi soo aragtaa inaan su'aal ku weydiiyo si fiican baa ka jawaabay waayahay waxa laga rabaa sanadkii la aasaasay ururkii SWL sanadkii la aasaasay ururkii SWL wallaahi taam garanay baa dhawaad walaal ma santahay aadna magaca Shirwac Maxamed Ali Shirwac inaan su'aal ku weydiino soo aragtaa aad iyo aad aan soo dhaweynaa walaal waayahay Soomaaliga si isku tir afka hooyo wana ugu wanaagsanaahay aad ma soo dhaweynaa ereyga waa erey Soomaaliya laakiin inaad waxa laga rabaa aad sharaxdid wuxuu yahay waxa la dhahaa ereyga likaaco sharaxaysa sharaxada ku bixinaysa likaaca sheegaysaa macnaheedu baad sheegaysaa kulli likaaco ma hayso asha maxamed inaan su'aal ku weydiino soo aragtaa wallaahi waxa arkaa si fiican barnaamijka ma la socotay ma daawataa barnaamijka waa la daawadaa wala socdaa su'aashu waxay ku leedahay qofka markuu weynaado waayeel noqdo oo uu awlaad dhalin magac buu leeyahay magaca maxaa la dhahaa awlaad uusan dhalin wallaahi garan kabiir meel dhaa fartuun mahadi fartuunay inaan su'aal ku weydiino soo aragtaa waa caadi walaal way weydiin ka dhaa see isku tihiin afka Soomaaliga waan isku fiicannahay waaya waxa laga rabaa ereyga likaaco maxaa la dhahaa likaaco la ma garanaysaa maxaa dhahaa Soomaali waa erey Soomaali likaaco anaha waa wax cadaan miya likaaco likaaco maxay tahay likaaco oo waxa iska macnaha kelmadda waxa waaye xayisiino kala maxaa waaye إيشي لكاع محاوية ما قالوا ما قرنا يسار لكاع يا ما لكاع محيطها مكا تعال ميا ما أدبا مكوتش لكاع وكوتش ذا كلام ميا محي نقول كده هدان إيجو صاحب هذا دان كويديو عبد الله محمد علي والله أنا سؤال كنت مدير عاديات قف مركو وينادو أو ويال نقطة أو سأولاد لهين مقعد الله يقان مقعد سودية
qofku markuu weynaado oo waayeel noqdo oo uusan awlaad lahayn magac buu leeyahay magacaas uu yahay dee qof wax dhalin waay حيوة دواء ولا magacaaga حمدي محمد xamdi inaan su'aalkoodina soo aragtaa ولا الوجواد waxa laga rabaa sanadkii la asaasay ururka SYL حياة ما قرنايو ma garanaysa ها aad baa u mahadsantahay waan dhawahay walaal magacaaga magacayga waxaa la yiraahdaa Cabbaas Salwi abaaso inaan su'aalkoodina soo aragtaa waa diyaar afka hooyo say isku tihiin afkooda isku wacannahay waaya waxa laga rabaa ereyga likaaco 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 waxaa la yiraahdaa gabadha markay dhasho waa likaaco la yiraahdaa waayahay su'aal kale aan ku weydiinayaa qofku markuu weynaado oo uu waayeel noqdo oo uusan awlaad lahayn magac buu leeyahay magacaas maxaa la dhahaa waxaa la yiraahdaa guumays magacaaga أحمد محمد يوسف axmed oo inaan su'aalkoodina soo aragtaa عاد وأقلها qofku markuu waayeel noqdo oo weynaado oo uusan awlaad lahayn magac buu leeyahay magaca maxaa la dhahaa وأساسق yaa أساسق barnaamijka aad baan uga qayb qaataa markasta waan ku dhawaabaya magaceena waa Axmed axmed oo inaan su'aalkoodina soo aragtaa waa caadi baa horena waa la ii weydiin jiray su'aalaha soomaaliga say isku tihiin Soomaaliga dib waa luqadeedii inkastoo dee luqadu ay margtahay hadda dhinaca u jeedo laakiin waxa laga rabaa kelmadda likaaco maxaa loola jeedaa kelmadda likaaco likaaco ma garan ma lii bedel karaa su'aash likaaco ma garan karaa anigu سعيد أحمد علي siciidow inaan su'aalkoodina soo aragtaa ها ديار بانو af soomaaliga say isku tihiin af Soomaaliga waa aqaano waayahay waxa laga rabaa kelmadda likaaco maxay tahay ya likaaco nikaaxo likaaco nikaaxo waligay ma maqal ma likaaco midna gobol kale ka soo jeeda may kama soo jeedo ma aqaan ma garanaysa ha ku dhawa magacaaga cabdicasiis axmed casiiso inaan su'aalkoodina soo aragtaa waa ogolaa su-aasha waa soo daawaran waayahay af soomaaliga say isku tihiin waa hor isku fiican af soomaaliga waxaa laga rabaa ereyga likaaco likaaco ariga likaaco waa xusuusanaya ariga likaaco ma maqal weliga likaaca ku dhawaay magacayga magacaaga xasan cabdirasiid xasan oo inaan su'aalkoodina soo aragtaa ها ديار باي waayahay af soomaaliga say isku tihiin waa ku fiican waxaa laga rabaa ereyga likaaco maxaa la dhahaa likaaco karamay wallahi likaaco likaaco waligay ma maqal barnaamijka su'aaska su'aalaha waxaan u arkaa barnaamij fiican weeye oo dad Soomaaliyeed ka dhaxeeyo marka waxay weydiinaysaa magacay waa Hanad hanadow waxaan ku weydiinayaa su'aal marka su'aashaas waxay ku leedahay qofku markuu waayeel noqdo oo uu weynaado magac baa loo yaqaanaa calashan markuu weynaado oo uusan awlaad dhalin ama caruur lahayn magacaas maxaa la dhahaa magacaas wallaahi runta haddaan sheego su'aasha kama jawaabi karo waayahay su'aal kale aan ku weydiinayaa ereyga likaaca laga rabaa micnihiisa likaaco likaaco waxaan u maleynayaa ereyga Soomaaliga u maleynayaa ereyga waa Soomaali calashan likaaco waa erey Soomaaliya marka waxa laga rabaa inaad rajaxdid wuxuu yahay wallaahi kama jawaabi karo walaal magacaaga guuleed maxaa cabdi guuleedow inaan su'aalkoodina soo aragtaa waayahay waxa laga rabaa qofku markuu weynaado waayeel noqdo oo uusan awlaad lahayn magac baa loo yaqaanaa magacaas wuxuu yahay madhalis magacaaga nuur cabdi shaaq maxaad soo aragtaa inaan su'aalku weydiiyo waa caadi su'aal macquul hadii tahay waayahay af soomaaliga say isku tihiin waa isku fiicannaha waxa laga rabaa ereyga likaaco muxuu yahay nikaaco 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 waxa weeye nikaaxo miyamso nikaaxo likaaco 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 waxa uu aqaanaa roobku markuu da'ayo qayb ka mid ah oo maartay sida hogol qaybteeda oo kale likaaco likaaco waa yiraahdaan dadku laakiin erey kale hadda ku fasira ma garanay cabdikariin maxamed muuse cabdikariin inaan su'aalkoodina soo aragtaa waa caadi bay ma qofku markuu weynaado oo uusan awlaad dhalin magac buu leeyahay magacaas maxaa la dhahaa markuu weynaado oo awlaad yahay la'aan magacaas hadaa raadiyo suga raadiyo waxaa la dhahaa su'aashaas way iga baxday waayahay magacaaga khadra
qadro inaan su'aal ku weydiino soo aragtaa okay dib male waayo waxa laga rabaa kelmadda likaaco weliga ma maqal ma maqal waxaan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka Suwaysi su'aalaha waa ku dhawaay walaal Cabdiqani Xuseen Cabdiqani soo aragtayna su'aal ku weydiino aad baan ugu faraxsan walaal afka hooyo say isku tihiin afka hooyo xogaa ma sha Allah waayo ereyga likaaca laga rabaa likaaco والله يرجع سيف سيف جلسنا أكون دواء اسمه سلامية مقعي والله عبد الله عنه رسكم قاعد يرعد عبد الله هو إن سؤالك ودي سؤالك ديار باين أديساس كاتشابي سومالي قصي اسكتين أفكه هو لا ضوء في عنا السومالي وهاي وحلقاتها بقى لكاعو ولي ما مقل إرجع الله السومالي كتير ما مقل إرجع ولي مقعي روبلي روبلو إن سؤالك ودي سو aragtaa waa ku faraxsan wallah Soomaaliga say isku tihiin ya Soomaaliga isku fiican waxa laga rabaa ereyga likaaco macnaheedu likaaco ereyga ma garanayo waayahay qofku markuu weynaado oo waayeel noqdo oo uusan awlaad dhalin magac baa la dhahaa magacaas laga rabaa magaca qof markuu maxay su'aasha igu soo qofku weynaado waayeel noqdo oo uusan awlaad dhalin magac buu leeyahay magacaas laga rabaa magaca waxa uu naqaan waa yaarag buu naqaan waayahay qofku markuu weynaado oo waayeel noqdo oo uusan awlaad lahayn magac buu leeyahay magacaas maxaa la dhahaa markuu weynaado oo awlaadna lahayn shab aan awlaad lahayn baa la dhaadeen waa dhawe walaal maan aad ba maasanta magacaaga maxamed cali warsame maxamed ina su'aal ku dina soo aragtay diyaar baa walaal maan ereyga likaaco baa laga rabaa likaaco laabjeex wey laabjeex goorma la asaasay ururkii SWL sanadkii SWL waxa la aasasay 1943 waa 1943 su'aal kale aan ku weydiinayaa qofku markuu weynaado oo waayeel noqdo oo uusan awlaad dhalin magac baa loo yaqaan magacaas muxuu yahay gablan igu soo celi qofku markuu waayeel noqdo oo weynaado awlaadna uusan lahayn magac baa loo yaqaan magacaas muxuu yahay gablan Soomaalian qofka markuu waayeel noqdo weynaado haddana uusan awlaad dhalin magac buu leeyahay magaceen loo yaqaan gablan jaamacow ina su'aal ku dina soo aragtaa walaal waa si fiican weey diyaar baan ah waxaad ii sheegtaa sanadkii la asaasay ururkii SWL waxaa la asaasay sanadkii 1943 waxa laga rabaa waayahay qofku markuu weynaado waayeel noqdo oo uusan awlaad dhalin magac buu leeyahay magaceen loo yaqaan gablan baa la dhahaa waa tahay daawadayaal waxaan filayaa inaad daawanayseen su'aalihii aan weydiiyay bulshada oo ka koobnaa 3 su'aalood qayb kamid ah waa laga jawaabay balse haddaan dib ugu noqdo su'aasha koowaad waxay ahayd sheeg qofku markuu weynaado oo waayeel noqdo oo uusan awlaad lahayn uusan dhalin waxa loo yaqaan magac buu leeyahay magacaas waa gablan su'aasha kale labaadna waxay ahayd sheeg sanadkii la asaasay ururkii SWL waa 1943 su'aasha kale saddexaadna waxay ahayd sheeg ereyga likaaco waxa la dhahaa hadal jees lagu yiri qof hadal jees oo kale kugu yiri ama jees oo kale hadal ah baa likaaca la dhahaa waxaan u malaynayaa idinkuna inaad ka faa'iideysateen saddexda su'aalood oo aan weydiiyay bulshada channelka naga daawanaysan waa Suwayska Cayte dhinaca kaamirada waa Cabdiweli Galayr intaan barnaamijka xiga ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo adduunka sodonkeeda beri intuu ballan qaaday Soomaa ilaah boqorka abaan mari